الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ugu tahnideynaynaa munaasabadda Ciidul Adha oo ah ciidaha muslimiinta ugu waaweyn ka mid ah. sidaan la socono Ciidul Adha kelmadda la yiraahdo ama tadxi ama adxa waxay u taagan tahay waa nafurnimo, waa in la huro qofka bini aadanka wax kasta oo qaali ah oo hayo inuu huro. sayidina Ibraahim calayhi salaam ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka codsaday inuu wiilkiisa tadxiyeeyo ama uu huro ama uu gowraco, amarkiisa uu ajiibay. waana la soconaa wax ka qaalisan lama arko ubadka ruuxa uu dhalay bini aadanka ah, laakiin sayidina Ibraahim arrintaas wuu ajiibay. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa furtay markii amarkiisii uu yeelay, wuxuuna ku furtay bidibxin cadiimin sida qur-aanka kariimka lagu sheegay. waa ciiddii aan bixi lahayn wax kastoo qaaliya oo nafteenna qaali ku ah, oo aan uga farxi lahayn dadka dhibaataysan, oo ay muslimiinta oo dhan ay wada farxi lahaayeen, oo dhammaanteen aan wada xiyeysan lahayn, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan farxad ku caabudi lahayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu muslimiinta u ogolaaday inay farxad ku caabudaan, ma aha keliya inay cibaado adag oo soon iyo salaad iyo sakale ku caabudaan, laakiin markay faraxsan yihiin inay ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudaan. waxaan la soconaa ummadda Soomaaliyeed dhib culays leh ayaa saaran sanado sodomeeyo ku dhow, laakiin waxaa u moodaa sanadihii ugu dambeysay inay aad iyo aad culayska usii batay. waxa culayska badinayana ay tahay dad ku dheelaya ama kharibaya magaca diinta, oo diintii islaamka ahayd ee xaniifka ahayd ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis looga wariyey in islaan mukulaali la xabistay, ay xirtay, ay biyo iyo cunto u diiday, naarta ku gashay. mid kale oo jirkeeda ka ganacsatana ay biyo siisay, ay waraabisay, ay janno ku gashay. diinta saas naxariista iyo raxmadda u leh oo ilaahay uu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. nebi maxamed ilaahay yidhi waxaa tahay raxmad aan adduunka u soo dirnay. yaa dad waxay ka dhigeen gowrac, qarbud, qarxis, madax jabis iyo layn ayay ka dhigeen, ayagoo weliba sheegana inay madax islaam tahay. waa ayaan daro ku soo korortay diinteenna iyo dadnimadeenna iyo ummadnimadeenna intaba. waxaan ugu baaqaynaa kooxaha qarxiska iyo madaxgooyada iyo qarbudaadda magaca diinta ku sheeganaya ku samaynaya inay u turaan diintan. annagana waxaanu kaga baahan yahay ummad Soomaaliyeed haddaan nahay inaan iska difaacno. markii nabigeenna waxaan ognahay nin kartuunista oo ku xadgudbay muslimiinta dhan oo ay Soomaali ku jirto way ka dhiidhiyeen. kuwa diinta ku xadgudbaya, magaceeda ku dheelaya, sharafteedii iyo karaamadeeda hoos u dhigaya, waxaan u baahannahay inaan meel uga soo wada jeesano. waxaan u baahannahay inaan ka difaacano diinteenna. waa waajib diini ah, waa waajib akhlaaqi ah, waa waajib wadani ah, waa waajib islaami ah inaan ka difaacano sharafta diinteenna iyo karaamadeenna iyo dhulkeenna iyo dadkeenna, inaan ka difaacano oo aan isku tiirsanaano, oo aan garbaha isgashanno, oo aan diintaas ay wax noo tarto. diintu waa waxa keliya ee aan haysanno oo na mideeya ayay ka mid tahay. waa caqiidadeeda, waa akhlaaqdeeda, waa cibaadadeeda, waa waxeeda wanaagsan oo dhan. laakiin diinta waa waajib inay wax noo tarto. ma aha annagoo dhammaanteen soomayna, annagoo dhammaanteen saka dhiibayna, annagoo xooggeenna xajka aadayna inaan wadciga aan ku noolnahay maanta aan ku noolaano waxay ka turjumaysaa inaan diinta si dhaba looga turjumaynin. marka waa inaan diinta islaamka si dhaba uga turjumnaa, oo ilaahay waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa ummaddan inuu nabadgeliyo iyo ayagoo argagixisada iyo kuwa magaca diintooda ku dheelaya iska xoreeyey, heeryadooda iska qaaday, ouna gaarsiiyo oo diin xaniif ah oo saliim ah oo degan oo nadiif ah oo tii islaamka ah oo asalka ah lagu yaqaanay aan ku wada nimcaysano oo aan ku wada noolaano. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. kullu caam wa antum bikhayr.